dadka naafada ah oo ah kuwa ku jilicsan bulshada Soomaalida ayaa wajahaya caqabadaha kala duwan ee dhinaca nolosha kuwaas oo maskax ahaan iyo muruq ahaanba uu saameeyay daryeelka ay u baahan yihiin dadka naafada ayaa ah mid aad u ballaaran waxaase jira hay'ado iyo shirkado faraku-tiris ah oo kaalmeeya qoysaska naafada hay'adda Alpha Trust oo ah hay'ad gargaar ah oo ay hirgeliyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isu abaabulay ayaa sanadihii ugu dambeeyay kor u qaaday taageerada ay siiyaan dadka naafada ah gaar ahaan shaqo abuurka oo noqday hanaanka keliya ee lagu caawin karo bulshada naafada Xalaawi Sheekh Daahir waa hooyo naafo ka ah labada lugood waxa ay dhashay 3 caruur oo iyada ka sugaya maaraynta noloshooda waxaana ay ku leedahay Muqdisho dukaan yar oo ay ku iibiso dhar iyo maacuun aan sidaasi u badnayn mas'uuliyiinta hay'adda Alpha Trust oo qiimeyn ku sameeya xaaladda qoyska Xalaawi ayaa go'aansaday in ay u maalgeliyaan ganacsigeeda si kor loogu qaado nolosha qoyskeeda maadaama dukaanka yar uu qarka u saarnaa in uu burburo hooyo Xalaawi oo ku faraxsan taageerada hay'adda Alpha Trust ayaa gacanta loo geliyay qarashkii ay ku maalgashan lahayd dukaankeeda waxaana ay hadda haysataa badeeco ka badantii ay hore ugu haysatay halkaas oo ay dareenkeeda nagula wadaagtay magacayga waxaa la yiraahdaa Xalaawi Sheekh Daahir waxaana hooyo Soomaaliyeed waxaan haystaa 3 caruur ah waxaan leeyahay dabakaayadan yar oo banaaneed waxaan u mahadcelinayaa hay'addii email gelisay Alpha Trust ilaahay khayr ka siiyo oo u mahadcelinayaa meel eber ah waxay iga soo bilaabeen way email geliyeen maaragtay baahidayda iyo dhibkii ay haystay maaragtay maanta waxaan filayaa inaan ka gudbay kaalmada ay siiyeen awgeed waa u mahadcelinayaa awalna meeshaan maxay ahayd waxba kuma aanan haynin oo meel banaan ay ahayd kirada xitaa dad ay iga bixinayeen laakiin wax yar oo qashin ahaan aniga meesha dhiganayay laakiin waad arkayseen marqaati cad baad ka ahaydeen inaan maaragtay meeshaan eber ahayd haddana markaad lacagtii siiseen waan dareemayaa muuqaalka inuu idin soo gaari doono aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa mahadsanidin jazaakallaahu khayr Basiira Cabdi Maxamed oo ah xiriiriyaha naafada gobolka Banaadir iyo Sayid Cali Cabdullaahi Salaad oo ah gudoomiyaha naafada qaranka Soomaaliyeed ayaa u mahadceliyay hay'adda Alpha Trust iyagoo ka codsaday in ay sii wadaan caawinaadda ay siinayaan dadka naafada waxaan u mahadcelinayaa dadka maxaa la yiraahdaa hay'addan isxilqaantay ee gabadha walaashay ee garab istaageen ee u qabteen howlahan iyo maxaa la yiraahdaa shaqo abuurkan u sameeyeen waan u mahadcelinayaa waxaana dhihi lahaa xilli looga baahnay ay mudneed ee qofkii ugu mudnaan ay ahayd ay walaashay u soo gurmadeen waa u mahadcelinaynaa aad ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay ummadda kalena inay mar walba fudaydaan Alpha Trust waa u mahadcelinaynaa hay'adda aad ugu mahadcelinaynaa maxaa la yiraahdaa sidoo kale tan waxaan mar walba leenahay ummadda kale tan fudayda hay'addaas oo saa oo kale u garab istaaga dadka walaalihiin Soomaaliyeed caawiya garab istaaga mar walba waa mahadsantihiin waxa farxadii ayna ka soo qayb galay maantay oo marxaati ka noqdo gabadhan walaasheena oo ay soo gaartay xogaa lacagtaas oo ay ka soo gaartay hay'adda Alpha Trust waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay u garatay hay'addaasi inay u gargaarto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka naafada waxaan uga mahadcelinaynaa ka warqabkaas waan ku dhiirigelinaynaa sidoo kale waxaan baaq u jeedinaynaa bulshada la midka ah ama shirkadaha kale ee shirkaddan Alpha Trust la midka ah inay mataqaanaa ay sheegay iyadana sidoo kale ay u garab istaagaan dadka naafada ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabkoodaba waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay soo noqon markii koowaad iyo markii labaad midna runtii gabadhani way u baahneed gargaarkan maanta loo fidiyay runtii waxa weeye waa qoys Soomaaliyeed waa maamo Soomaaliyeed oo naafo ah runtii waa qof shaqaysta waxaan u maleynayaa in maanta iyo wixii ka dambeeya ay niyadsan iyo qalbi fiican iyo shaqo fiican oo loo abuuray ay noqon doonto midaan annaguna waa dhiirigelinaynaa Umar Maxamed Soomane magaalada Muqdisho